بسم الله الرحمن الرحيم tusan oo habboon daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono nidaamka doorashooyinka dalka Kenya. waxaanu barnaamijkan ku marti qaadnay oo isla markaana aanu ku wareysan doonaa gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka ee dalkani Kenya mudane Axmed Isaaq Xasan. mudane Axmed Isaaq ku soo dhawow fogaan aragga bariya ATN. kolka u horeysana waxaanu jecelnahay inaan ku weydiino bal guud ahaan xafiiska aad gudoomiyaha ka tahay guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka maxaa intii lagu doortay idin qabsoomay? بسم الله الرحمن الرحيم وبسنت هاي عبد الرشيد guddiga sidaad sheegtay waa guddi oo kumeel gaar ah oo maartay guddiga doorashada wadanka waxaana la siiyay maartay mandate oo dhamaanayo maartay sanadka soo socdo bisha 12 December ama markii maartay dastuur cusub oo soo hirgalo midii hadba soo hormaro marka waxaana soo xushay baarlamaanka wuxuu ka tirsan yahay 9 xubin anigoo ay gudoomiyaha iyo 8 members oo commissioners oo mid kastana maartay laga soo xushay maartay gobolkiisa wadankan wuxuu ka tirsan yahay 8 gobolood marka waxaan bilownay shaqada May taariikhda 11 markii aan inta xafiiska imaanay waxaan u imaanay xafiis oo maartay nin aan joogin waayo baarlamaanka waxay shaqada ka eriyeen guddiga hore oo maartay u xirsaarnaa doorashada iyo shaqaalaha maartay ka shaqeynaya u shaqeynaya guddiga waxay isku ahaayeen 650 shaqaale ahaayeen kuwa ka shaqeynaya meeshan xafiiska Nairobi iyo goboladaba marka waxaa jiray marka oo banaana 2 kursi oo maartay u baahnaa in loo qabto doorasho Shinyalu iyo Bomachoge afhayeenka baarlamaankana wuxuu na siiyay amar inaan qabano doorashada sharcigana wuxuu leeyahay mar haddii afhayeenka uu maartay uu soo gudbiyo maartay amarkaas 9 beri gudahood waa inaa qabatiin doorashadaas marka waxay nagu qasbatay marka inaan dawladda ka codsano shaqaale yar oo maartay oo nala qabto shaqada doorashada iyo intii aan maartay shaqaalahayna aan ka qoranayno guddi ahaan inay siiyaan marka ilaa waxaan la siiyay ilaa 50 shaqaale oo maartay dawladda ka imaadeen oo kamid ahayeen guddigii loo xirsaaray inay burburiyaan guddiga hore ECK marka waan qabanay shaqadaas oo doorashada Bomachoge ee Shinyalu inta ka hore waxaan bilaabnay inaan dadka aan diiwaan gelino bil gudahood marka alxamdulillah adiga 60% ayaa soo qoreen inay maartay cod ridi karaan doorashada kadib waxaan qornay shaqaalihii markaa shaqada nala qaban lahaa ee doorashada kuwaas waxaa la dhahay returning officer iyo maartay constituency coordinator adig kuwii maartay shaqaalihii meesha ka qaban lahaayeen marka nidaamka hore oo jiray wuxuu ahaa guddiga ayaa maartay dadka u yeeri jiray oo maartay qori jireen laakiin anaka waan ka bedelnay sidaas waxaan ku soo qornay journalka maartay nafaasiha ay jiraan dadka inay soo apply gareystaan interview waa laga qaaday marka si maartay cadaalad oo maartay oo banaan baan dadka ku qornay runtina marka dadka badan ku qanceen sidaan ku bilownay shaqadaas dadkaan ku qornay marka labada qof marka aan u xirsaanay inay shaqada qabtaan doorashada Shinyalu iyo Bomachoge waxay ahayn dadka imaadeen labada meel laakiin maalintii doorashada la qaban doono ama maalin ka hore waxaan suubinay waan kala bedelnay kii aan u dooranay Shinyalu waxaan geynay Bomachoge midkii Bomachogena waxaan geynay Shinyalu ladalik kuwii ay kan u xirsaanayeen waxa la dhaho polling station meesha codka laga rido ay kana waan kala bedelnay kuwii aan u qornay Shinyalu waxaan u geynay Bomachoge kuwii Bomachogena waxaan geynay Shinyalu marka dadka marka aad bay ugu farxeen maxay leey waxaan geynay dad oo maartay aan ka imaanin meesha doorashada laga ridayo dad oo maartay waxay ahayn gobolka ka imaaday marka hatta baarlamaanku u taagnaayeen ma leeyahay fursad ay maartay ay kula hadlaan
maaragtay ama ay maaragtay ay ku bedelaan fikradooda. waxaan kaloo keenay transparent ballot boxes. waddankan naydo muddo badan waxaa lagu subin jiray doorashada sanduuqyaha madow oo maaragtay waxaa la dhahaa black boxes, laakiin waxaan u bedelnay inaan doorashada inaan keenno transparent ballot boxes kuwa la iska arki karo, oo qofka markuu codka kelida uu maaragtay uu arki karo inuu maaragtay waxba ku jirin meesha markay bilaabayeen doorashada ay bilaabayeen. marka si runtii taasna iyadana waxay ahayd mid oo maaragtay keentay maaragtay confidence inay dadka ay siiso meesha maaragtay si aan doorashada u qabanay. waxaan kaloo markaa suubinay 400 oo qof baa imaadeen oo ahaayeen observers, fiirinayeen si aan shaqada u qabanaynay. waxaa ka mid ahaa dad oo ka imaaday dibadda oo international organizations kama UN-ta, EU iyo AU, Africa Union. waxaa kaloo jireen kuwa ka imaadeen safaradaha waddankan u joogaan waddamaha kale sida matalan Mareykanka, Ingiriiska, EU-ga iyo waddamaha kale Afrikaanka ay kana joogaan iyo kuwa hay-adaha Kenya ka mid ah. marka 400 qof reportkooda ayay noo soo direen, ayakana aad bay si runtii ugu farxeen sidaan u qabanay. way noo sheegeen maaragtay khaladaha ay arkeen waqtigii maaragtay doorashada, matalan maaragtay dad maaragtay lacag bixinay laaluush oo kuwa maaragtay ayakana aan ka soo celinay aan u diidnay inay doorashada ay ridaan. marka report bay noo keeneen. reportka guud ahaan waxay dhaheen shaqo fiican baa qabanay. waa lagu soo qoray journaalka inaan maaragtay gudi ahaan inkastoo aan mudeerna la siiyey aan haysanay shaqada aan qaban ay ahayd mid oo maaragtay lagu farxay oo markaa nagula booriyey inaan maaragtay aan sii dadaalno sifa markaa doorashada dambe ay noqoto mid maaragtay cadaalad noqoto. hataa waxaan ka helnay waraaq safiirka u jooga waddanka Kenya ambassador Michael Ranabaga asagoo ku hadlayo codka dowladdiisa iyo madaxweynihiisa Obama uu nagu hambalyeynay maaragtay shaqadaas aan u qabanay. wuuna leeyahay maaragtay dowladdiisa waxay diyaar u tahay inay hadba ay garab ayna caawiso waddan ahaan gudi ahaan sidaan maaragtay ku heli lahayn doorasho xaqi waddankan. dad baa jira aan ka qabanay waqtigii doorashada, dadkaasoo maaragtay qaar laaluush la siinayay iyo qaar bixinayeen laaluush oo maxkamadda waa la geeyey. kuwa waxaa jiraan 4 jeer 3 jeer isqoreen inay maaragtay doorashada ay ridaan. waddankana waa gaf waaye waddankan sharcigiisa hal cod baa la yaara in rido, laakiin dad baa jira 3 jeer isqoreen oo 3 kuwar wateen. dhowr waxay ahayn 45 bay ahayn. marka 5 baan ka qabanay, kuwii kale laakiin ma imaan way carareen. marka 5taas ayagana maxkamadda la geeyey oo qaar baa la feenay qaarna waa la xukumay. marka si runtii marka waxay u dirtay marka fariin dadka inay maaragtay safartanaydu inay maaragtay jiri karin wixii dhici jiray marka hore. marka horta taas intaas hadda ayaan qabanay gudi ahaan. waxaad noo sheegtay waxyaaba aada qurux badan oo aad ku guulaysateen idinkoo ku jira bilihii hore ee shaqadiina. bal markan xafiiskiinu muxuu nidaaminayaa oo idin hor yaala oo aad rabtaan inaad hirgelisaan oo xafiiskiina yaala? hadda waxaan ku jirnaa inaan horta aan qorno shaqaalaha ka shaqeyn lahaa guddi u shaqeyn lahaa xafiiska nayda Nairobi iyo gobolada. waxaan kusoo qornay journaalyaha maaragtay shaqooyinka aan u baahannahay inay dadka ay usoo apply gareystaan. sidii runtii waxaan rabnaa inaan maaragtay qorno dad maaragtay mutacalimiin ah oo maaragtay aan siyaasad ku jirin oo nala shaqeeyo inaan maaragtay waddankan guddi fiican oo maaragtay shaqada doorashada qaban karo uu noqdo. waxaa kaloo jirta gobolada waxaan ka qoraynaa waxaa la dhaho constituency coordinator oo maaragtay mas-uul ka noqon doono gobolka laga soo doorto ninka baarlamaanka u joogo gobolkaas. marka kuwaasna markii hadda shaqada ay bilaabayeen, laakiin waqtiga doorashada waxaan ku tala jirnaa inaan ayakana isku jaandhayno oo aan nin kasta meeshu ka imaanin aan u dirno meel kale aan u dirno siba marka aan soo bixino cadaaladda shaqada sidaan shaqada qabanayno. hadda waxaan kaloo ku jirnaa inaan shaadhic cusub aan keenno oo markaa shaqaalaha oo kale saad u qoraysaan jaraa'idada aan arkay idinkoo kusoo qoraya qaabkaas oo kale ma imtixaanaad u diyaarinaysaan oo ay geli doonaan?
ها waxaa ku qasbanahay horta inaan waxaan kusoo qornay journaalka inuu ahaado qofka inuu noqdo graduate oo maaragtay mutacalim oo ka soo baxay jaamacadda waa inuu ahaado qof maaragtay soo qabtay shaqad maaragtay oo maamul ah manager ka ah ama private sector ama dowladda ama meel kale ka shaqeynaya laakiin waa inuu la imaado shuruudooyinkaas waxaa kaloo ka mid ah waa inuu lahaado maaragtay inuu aqaano sida loo isticmaalo computerka waxaa yeelay waxaan isticmaali doonaa ICT IT-ga waddankan wuxuu u baahan yahay haddii aan rabno inaan doorashada waddankan aan ka dhigno mid cadaalad fiican ah waa inaan isticmaalno fursad aan u qabno inaan IT-ga aan isticmaalno marka waa qasab inuu lahaado IT knowledge marka graduate waaye marka wuxuuna ka noqonaa marka mas-uul constituency-ga mar haddii waxaana laga qaadi doonaa waxaa laga qaadaya test markuu imaado interview baan ka qaadayna dadka guddi baa jira oo loo xil saaray inay interview ka qaadaan interview waxaa ka mid a marka practicals inuu maaragtay in loo dhibo maaragtay computer oo maaragtay uu diro ama report uu qoro ama maaragtay waxaas uu subiyo marka taas marka waxay naga caawinaysaa waqtiga aan maaragtay doorashada aan qaban doono wadankii sanadkii aan soo dhaafanay 2007 doorashada markay dhacday markii doorashada ay dhaceysay dhib ma jirin oo maaragtay dadka si fiican bay doorashada u rideen marka waxaa dhibka wuxuu bilowday markay daahday maaragtay markii in la sheego resultska marka uu marka ula daahay guddoomiyaha ayuu maaragtay ayaa tensionka ay kor usii kacay marka hadda waxaan la imaanay barnaamij inaan maaragtay aan dhaqsino sidii aan u sheegi lahayn resultska computerska marka aan siin doono constituency kasta waxaan soo gadnay 210 laptops waxaa lagu subin doonaa networking in maaragtay lagu qabto headquarterska xafiiska marka sidii sifa marka qofka markuu ka sheego resultska constituency-ga markuu announce gareeyo cabdirashiid baa ku guuleystay intan baa ku guuleystay waa inay idina toos u imaato Nairobi markuu sheegayo waa inay imaato oo marka laga arko waxa aan dhihi doono National Media Center oo hataa media-ga ay maaragtay ka qaadanayeen doorashada hore media-ga waxay qabeen wariyada ayaa u joogay maaragtay meelaha u soo warramay oo haddaad fiiriso nation waxay xisbinayeen reportkooda qoranayeen kuwa KTN sidaas oo kale marka aykan waxay ka mid ahayn dadka dhibka keenay maxaa yeelay nin kasta siduu rabo maaragtay usoo sheegay doorashada laakiin waxaan rabnaa inay hal meel ka qaataan reportka sifa marka inuu noqdo mid oo war oo rasmi ah inay sheegaan marka taas waa sidaan u qori doono shaqaalaha maaragtay waxaan kaloo aan ku darnay shaqaalaha aan qori doono waa inay lahaadaan suuradda waddanka Kenya waa inay maaragtay cid kasta gobol kasta qabiil kasta uu ka muuqdo intaba iyo goboladaba marka waxaan rabaa inaan u qaybino inkastoo shaqa aan sheegnay qualificationska laakiin weli waxaan qalbiga ku haysanaa sidii loogu qaybin lahaa waddanka shaqadaas gobolada kudi ay maaragtay ay gaari lahayd taas marka mid waaye waa barka shaqaalaha waaye midda kale waxaa waaye arrimaha sharcigaas sidaad ogtahay inkastoo guddiga hore la baaburiyey oo anigan meesha aan noola keenay as a interim body sharcigii ay ku shaqeynayeen weli waa kii waaye wax laga bedel ma jiro waxaan la bedelay oo qodobka 41 ayaa la bedelay oo kaas ma la bedelo wax kale la bedel ma jirto marka hadda waxaan la kulmi doonaa waa kii ay ku shaqeynayeen guddiga hore oo maaragtay ECK ay maaragtay kii ay isticmaalayeen inay ku shaqeeyaan kaasay marka baarlamaanka ay bedeleen ayakay ka saareen meesha anaka inagu bedeleen wax kaloo ay bedeleen ma jiro marka dhibkii ay qabeen guddiga hore weli anaka una hayaa marka hadda waxaan la imaanay sharci cusuban oo aan rabno inaan baarlamaanka markii la furo bisha 11aad inay ka doodaan waxaa ka mid ah in maaragtay guddiga doorashada uu noqdo mid maaragtay yar sida ogto kuwii hore waxay ahayn 22 bay ahayn marka waxaan rabnaa inaan aan keeno recommendations codsi in maaragtay sharciga la mariyo guddiga inuu ahdo mid yar oo maaragtay ka kooban hadda inta aan nahay oo la siiyo maaragtay muddo fiican ama 5 sano ama 7 sano oo hal mar ah oo maaragtay aan loo cusboonayn karin soo markaa qofku markii mar shaqada loo dhibo inuu maaragtay shaqada uu dhameysto midda kale waxaan codsan doonaa guddigaas doorashada inuu noqdo mid xor ah
بركي budgetka hadda budgetka waa inaan marino wasaaradda arrimaha u xilsaaran cadaaladda iyo tan maaliyadda laakiin haddaad fiiriso guddiyaha kale oo wadamaha Ghana oo kale ama South Africa ama Uganda budgetkooda toos wuxuu aadaa baarlamaanka toos u mariya marka taasna marka waxay siinaysaa maartay independence iyo xornimo fiican hadda laakiin waxa way waxaan ku xiranahay wasaarad waa inay noo approve gareysto taa marka waxay kamid tahay arrimaha maartay aan keenayno inay maartay guddi u noqdo guddi xor ah mid kale waxa way waxaan rabnaa inay maartay sida shaqada looga tiri dadka commissionerska in maartay sharciga maartay si fiican toos ugu sheego waayo markii shaqada laga tiri ku hore waxa jira walbahar badan baa jira dadka sida ay u shaqeyn doonaan marka waxaan iyadana in maartay lagu cadeeyo sida looga tiri karo shaqada maartay nidaamkan la soo mari doono ee maartay very clear meesha ku ahaato taas marka waa mid taa waa sharci ku saabsan guddiga guddiga maamulida doorashada tukal waxaa jirta oo ayadana aan keen doono oo ku saabsan doorashooyinka waxaa la elections bill waxay isku dayaysaa marka inay isku keento hal meel sharciga hadda waddanka u yaalo oo u xilsaaran arrimaha doorashada waxaa ka mid ah marka inaan la kala saaro doorashooyinka madaxweynaha iyo doorashooyinka baarlamaanka iyo dowladda hoose sidaad ogtood waxa dhibka badankan waddankan waxaa weeye doorashada madaxweynaha taasaa very competitive oo aada iskugu dagaala marka haddii la kala saaro labadaas doorasho waxaan u malaynaynaa inay maartay horta xasaasiga maartay iyo inuu hoos u degi doono Uganda Ghana guddi waxay subiyaan saas iskuma qabtaan labada doorasho marka taas waa mid oo aan keen doono mid labaad waxa way waxaan keenaynaa maartay ganaxyo aad u kulul oo dadka lagu qabto maartay inay ama ka dambeeyeen dagaal doorashada ama ay ka dambeeyeen maartay laaluush inay dadka ay wax siiyaan ama kan qaatabo ilaa iyo inuu fine maartay ama ganax ilaa 1 milyan oo lacag Kenya ama ilaa 5 sano oo ganax oo jeela in la xiri karo kuwaas marka waa kuwa maartay inaan xarab inaan baarlamaanka u taagan xisbiyaha inay maartay ay raacaan code of conduct maartay oo ku saabsan arrimaha doorashada waxaan kaloo keenay oo waxaa la dhaho academic qualifications dadka loo dooran doono guddoomiyaha dowladaha hoose ama baarlamaanka waa inay lahaadaan maartay wax yar oo maartay ama ha aadaan graduate ama ha aadaan post graduate laakiin ina minimum marka u yar yihiin inay noqdaan dad maartay ka soo baxay form 4 ama degree inay lahaadaan taas marka waa mid already hadda baarlamaanka ay ka hadlayaan already maanta waxay ku qoran journalka inay maartay keen doonaan sharci noocaas marka arrimaha doorashada marka waxa way hadda waxaan keen doonaa sharci cusub فايا هاي نود صلى مرة هاي أضيع هاي حالها يا حالك بحالك ما هي يالو كان وحواي وكلون دون الوسالة والو برا ها توا برات جليسة والو برا يسكت المجاعة وفي دار مالها يسكت المجاعة كلمة عششية ككاتو بليلة كلمة عششية ككاتو بليلة ككاتو بليلة
وهاجاج مدنه قدومي دوان واحد لك كلانتي حقيقي جود قرامة المدوبي هراء كوفي عنان وحنا ملع صدي ريبوت أما وربحين عاد وجود بيسي وحفيز كاجا كسبسن كوفي عنان كلن كأرد لك كلانتي محاك كاجا صوب حي horta gudoomiyaha wuxuu saaran arrimaha Kofi Annan uu wadanka uu ka hayo waxa la ambassador Nano waa nin oo maartay xafiis ku yaalo sarena joogo marka asaga aan soo wacay oo na yiri markuu imaado Kofi Annan wuxuu rabaa inuu kula kulmo wuxuuna isii maartay taariikh iyo muddo waqti marka anigana marka waan ku fahmgaray inaan maartay aan diyaar u yahay marka waxaan sii diyaariyay report oo qoraal ah oo maartay shaqada aan qabanay meesha marayno waxaan noo dambeeyo marka waxaan la kulmay talaadadii 3 saac ilaa 4 saac hal saac baan UEC inaan u ramo oo war aan siiyo wixii maartay aan qabanay inta uu tagayna horaan war buu sii haystay oo loo sheegay inaan maartay shaqada aan sii qabanay oo qaarna wuxuu ka helay war ama dawladda ama civil society-ga marka horta wuxuu yiri wuxuu noo hambaliyay shaqadii aan qabanay oo maartay doorashadii si fiican ku dhacday Bomachoge ee Shinyalu marka wuxuu yiri aad buu ugu farxay sidaan u qabanay shaqadaas marka wuxuuna nagu booriyay inaan maartay aan ku da'ano wadamada Ghana mise South Africa sidoo qabteen shaqada marka aniga marka report baan siiyay meeshan joogno sidii noola magacaabay waxaan qabanay marka waxaan kaloo sheegay inaan maartay Ghana aan u dirnay guddi soo study garay maartay shaqadaas ay u qabteen waxaan kaloo u dirnay guddi maartay South Africa inuu la soo shiro guddiga doorashada South Africa inaan soo arkaan nidaamkooda iyo siday u maamulaan doorashada anigana haddana waxaan guddi baan madax ka ahay oo aadi doono India oo soo fiirin doono doorashada hadda ka dhici doonto gobolka la dhaho Maharashtra oo Bombay ay u tahay magaalo madax waxaan la kulmi doonaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa oo u xilsaaran doorashada India ayakana waan tacliim ka soo qaadanayna marka waxay tahay capacity building oo aan ka qaadanayno maartay commissionska marka Kofi Annan marka report baan siiyay wuxuu aad ugu farxay meeshan sidaan shaqo u qabanay iyo hadda waxaan soo beenayno waxaan kaloo brief ka siiyay sharciyaha cusub aan keen doono ayakana Kofi baan siiyay kuwa hadda aan baarlamaan keen doono marka wuxuu marka ii sheegay inuu maartay ku adkeen doono dawladda iyo baarlamaankaba inay garabna siiyaan arrimaha sharciga cusuban wuxuu kaloo ii sheegay inuu maartay uu iyana xoojin doono dhowr community-ga deeqbixiyaasha wadanka joogo inay maartay na kaalmeeyaan waayo mashruuc aan keen doono cusuban qaar waxay u baahan doonaan maartay lacag fara badan مثلا haddii aan keeno electronic voting waxay u baahanaysaa maartay lacag badan oo budget ka dana la siiyay dawladda ina siisay oo maartay uu naaficin marka wuxuu noo sheegay marka inuu maartay ku adkeen doono deeqbixiyaasha inay na kaalmeeyaan UNDP Kenya ba hadda aad noo kaalmeysaa oo maartay nala shaqeysa sidii runtii hataa marka aadayna Ghana marka aadna South Africa ayaka bixiyeen qarashkaas iyo dad nala direen Indian hadda way ka qayb qaadanayaan marka sidii runtii UNDP aad bay noo caawisay guddiyahan aykiyo marka kuwa kalena marka way diyaar bayna u yihiin inay nala shaqeeyaan haddana waxay ku jiraan barnaamij inay maartay hagaajiyaan sanduuq oo lacagta guddi wixii deeqbiyaasha ay ku shubaan marka aan ka soo qaadan wixii aan u baahanay aan u geeyno maartay projectska marka sidii runtii markuu la kulmana way noo sheegeen inuu saa ku dhahay uu yiri guddiga aad loo caawiyo ay ka noo sheegeen marka aniga sidii runtii aad baan ugu faraxsanay asagana aad buu ugu farxay shaqadayda wuxuu yiri aad buu ugu farxay inaan wilo ahaan wuxuu yiri ninkaas wuxuu ka mid yahay dadka maartay wadankan oo shaqeynooda si fiican lahaa shaqada fiican aqoon karo marka waan haddana waxaan filayaa maartay sidii aan asaga u brief gareeyay inaan maartay aan la shaqeyno baarlamaanka aan keeno sharciyahaas iyo isbedelkaas waayahay gudoomiye waxaan ku weydiinayaa qorshayaashan badan ee hadda xafiiskaaga yaalla ee aada noo sheegtay ay ka mid yihiin mustawaha tacliimeed iyo qaabkan cusub in loo shaqeeyo inaad go-aamo adag soo saari doontaan iyo shaqaalaha inaad ku xulan doontaan sidii hore si aan ahayn
waxaadna kaga warqabtaa guddigii hore xafiiskan hore u maamuli jiray hadda iyagu shaqadan ka tegay baarlamaanku siyaabo loo diiday baa jira waxaasoo dhan adigoo og mashruucan iyo xafiiskaaga qorshayaashan yaalla inteebuu kugu hirgeli karaa bay kula tahay waxay ku xiran tahay sidii runtii sidii baarlamaanka siduu u qaadan doono proposalka aan u keeni doono that's why hadda markii aan qabi doono workshop next week waxaan u yeernay guddiga u xilsaaran arrimaha sharciga oo cabdiqaadir maxamed uu maaragtay uu guddi ka jaman guddoomiye ka yahay sifa ay maaragtay nala ogaadaan meeshii aan marhayno waxaan soo keeni doono sifa markii aan keenno baarlamaanka aan u keenno ayaga ay noqdaan kuwa maaragtay horsood u noqdaan arrimaha sharciga marka horta arrimaha badan oo aan keeni doono waxay ku xiran tahay sidii aan u heli doono support baarlamaanka waxaana filayaa anigaas sidii runtii inay maaragtay marin doonaan maxaa yeelay waddankan waxaan soo marnay waqti xun dad badan baa dhintay maal badan baa yaa maaragtay gubtay because of doorashada 2007 marka nin kasta markii aan la hadalno ama baarlamaanka aadaan ama xisbiyaha aadaan ama civil society nin kasta wuxuu diyaar u yahay in la bedelo nidaamka doorashada marka waxaan aan xaqiiq u qabaa haddii aan keenno arrimahanaydo inay baarlamaanka ay nala qaban doonaan shaqada insha allah su-aasha u dambeysa aan ku weydiinaya waa December 2010 marka uu ku egyahay kumeelgaar xafiiskina kumeelgaarka ahi adiga ka Axmed ahaan halkee baad is leedahay baad gaarsiin kartaa nidaamka doorashooyinka ee dalka Kenya إن شاء الله بإذن الله الكريم وحن ربا هرت إن مارتي دتك إن مارتي دب أو صون قدان confidence يكون خبين مارتي جود كدور الشدة يوم مارتي نظام كدور الشدة وايد دتك هرت وحي صوفت عيد عدي 2007 election كي ديسمبر يقدم به دتك سيرونتي وحي نقدر دت مارتي عن lack of confidence أي ونقدر against the commission marka waxaan isleeyahay markaan bogno shaqadan iyadoo aan qaban doono baa inaan maartay dadka ay maartay ay heli doonaan confidence kaas inay maartay inay guddiga uu qaban karo shaqo fiican oo doorashada waxaan kaloo isleeyahay sharciyaha la keen doono inay maartay awoodi karaan waddanka inuu qabto doorashada 2012 oo hadda la sugayo inay noqoto mid maartay ka bedelnaato sidii tii hore dhacday waayo dadka waan tacliim ka soo qaadanay wixii dhacay haddana waxaan rabnaa inaan ka bedelno wixii si waxaan u qaban lahayn doorasho fiican oo xaq ah marka waxaan isleeyahay waddanka Kenya wuxuu noqon doonaa waddan haddana loogu dacdo si waddamaha kale insha allah aad baad mahadsantahay gudoomiye shukran jazakallah khair وهاجا daawadayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin waqtigii barnaamijka aad daawanayseen sidoo kale waxaanu mahad badan u celinaynaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee kumeelgaarka ee dalkani Kenya mudane Axmed Isaaq Xasan halka u dambeysana waa bahda fogaan araga bariya ETN oo isku duuban oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu